السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح وناكسن، صباح الخير. waxaan rajeynayaa dhammaantiin inaa fiican tihiin. waxaan kaloo rajeynayaa inta xanuunsanna inuu ilaahay caafiyo, waalidiinteenii dhimtay oo dhanna alla u naxariista, iyo walaalahaba iyo muslimiintaba dhammaantood inuu ilaahay u gargaaro. waxaan rajeynayaa walaalayaal inaad iska wada caafimaad qabtaan dhammaantiin. ilaahay subxaanahu watacaala meelahaynu kala joogno caalamka haynugu ammaansado. waa maalin jimco ah, sabax alkhayr ayaan idin leeyahay. soo dhawaada. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. marka subaxi qof walba uu tooso uu kaco oo adkaartiisa iyo salaadiisa akhristo, mar walba shukriga ilaahay waa waxinoo ah wax wanaagsan. mar walba waxaan leenahay daa'iman wa abadan alxamdu lilaah. ilaahayow adiga ayaa mahad leh oo caafimaad nagu soo nabadkiciyey. inta xanuunsanna waxaan ilaahay uga baryayaa inuu ilaahay caafimaadiyo oo ilaahay subxaanahu watacaala caafimaad buuxa uu siiyo, caafimaadkoodina uu soo celiyo. inta xanuunsan oo dhan, intii dhimatay ee waalid iyo walaal ugu horeeyana ilaah waxaan ka baryayaa subxaanahu watacaala inuu naxariisto, khaasatan aabahay aan aada u jeclaa iyo hooyaday macaan iyo ayooyinkay oon aada iyagaba u jeclaa. allah u naxariistaan leeyahay, iyo dhammaan walaalahay intii dhimatayba, dhammaan walaalaha muslimiinta oo dhintayna waanu ducayneynaa. maanta waa maalin jimco ah, waa maalin ducadu ay furan tahay. mar walba ilaahay waa naga aqbalaya haddaan ducaysano, laakiin maalmuhu kala duwan, waqtiguna kala duwan. marka waxaan ilaahay ka baryayaa intii waalidiintood ay dhimatay ee aan ugu horeeyaba inuu ilaahay waalidkay u naxariisto. waalidkii waa waalidkiina dhalay ina soo koriyey, ilaahay janno firdowsa ha geliyaan leeyahay. qof waliba kolley intii waalidiintood dhimato unbaa dareemi karta waalid la-aanta. waxaan leeyahay ilaahayo waalidkan naxariiso, qabriga u waasice, udgoone, u iftiimo, u nuuri. inta waalidkood xanuunsan yahayna ilaahay waxaan uga baryayaa inuu ilaahay subxaanahu watacaala waalidkood u caafimaadiyo. adduunyadan waa iska sabir iyo dulqaad walaalayaalo. waalidku waxa weeyaan yani markuu kugu xanuunsadana subxaan allah, ninkii waalidkii xanuunsado muddo sariir saarnaa ayuunbaa dareemi kara. waalidka runtii wax badan buu nala soo maray. marka waxaan rajeynayaa in aan sidii uu markii aynu yaryarayn inugu naxariisan jiray iyo si kasii wanaagsanba insha allah inaynu ugu naxariisano oo inaan uga agfogaanin markuu xanuunsado. intaas waxa weeyaan waa iska baraarujin. qof waliba uu garanayaa waalidkiisa siduu xanaanaysanayo iyo sida uu ilaalinayo intaba. intaa kadib waxaan leeyahay ilaahu intii bugtaba, ama dhalinyaro ha noqoto ama dad waaweyn waalid ha noqdaan ama walaalba ah, ilaahu dhammaantood wada caafi. bacda ducada, maanta waa maalin jimcaha. maalmahan fiidiyoyadeydii waan yareeyo, aad baan u yaro mashquulay. marka hadda alxamdulilaah, insha allah hadda wixii ka dambeeya waxay noqon doontaa insha allah inaan maalin walba inii soo geliyo video biidni illaahi alkariim. kolley maanta waa maalin jimco ah. sida caadada ay tahayna waxaa jirta cuntooyin guri wal oo soomaaliya inta badan laga kariyo. inkastoo maxaa la yidhaahdaa anaga dee maalinta jimcaha waxbarashadii iyo qof waliba hawshiisa uu kacay u baxayo, haddana waxaan isku dayay bal inaan maanta insha allah kasoo tuuro quraac yar oo wanaagsan, oo quraacdeeni canjeeradeeni iyo maraqeedii maasha allah. intii aan haysana allah ha waasiciyo irsaaqada oo ilaahay ha siiyaan leeyahay. inta haysataan ka midka nahay imika maanta waxay afkooda geliyaan hayana allah u barakeeyaan leeyahay. maasha allah tabaarakallah. biidni illaahi almawla. waxaan rajeynayaa nin waliba meeshuu ka ooman yahay inuu ilaahay ka oontiro. walaalayaalow waxa weeyaan canjeerada waxaan ka sameeyey burkii madooba, daqiiqdii madoobeyd. marka waxaan ku daray xoogaa yar oo ah daqiiqda cad, marka wax yaro leebita ah iyo wax yaro milix ah. marka waa iska garanaysaan inteena caadiga ahayd ee aynu weligeenba aynu ku darsan jirin unbaan ku daray. marka waxaan rajeynayaa in qolyaha iskaabulada ah
iyo dhalinyarada keligood nool ama doonaysa waxbaratay doonaya inay wax karsadaan oo kale ay ka faa'iidaystaan. Dumarka iyo kolley hooyooyinka iyo habluba way iska garanayaan, waa normal taasi. laakiin waxaan uga faa'iideynayaa insha Allah intii hooyooyinkood intay la soo joogeen iyo faamiliyadii ka tagay maanta qurba jooga ma garanaysa u baahan si ay uga faa'iidaystaan biidnillaahi alkariim. marka waa kaasa waxaan u sameeyey labo suugo kala nooca ama labo maraqo kala nooca. haddaan aan ku hadlo labada lahjadood aan dhexda u taaganahay bidixdeeda iyo midigtayda, midna waa cadaan midna waa casaan. marka kan cadaanka waa hilib yar oo yacni bilaa laf ah ayaan ka sameeyo, yacni jiir nadiif ah iyo baradhadii iyo karoodkii iyo wixii baharaad anigu markaa aan jeclahay aan ku darsanay. qof walbana wuxuu jecel yahay ku darsan karaa. kan kalena waxaan ka dhigay bocor iyo baradho iyo baan ku daray iyo qudrawaad karoot. marka asagana aakhirkii markii ay suugo cas noqotay aan ku daray wixii aan ku wada daray oo dhan halkaas ka wada arki doontaan insha Allah. waxaan ku daray beed aan kariyay oo dhilay ayaan ku dhex riday. marka suugo cas oo beedkina u dhex fadhiya ayay noqoto maasha Allah. de waa kaasa. marka waxaan rajaynayaa insha Allah hadda kadib inaan si wanaagsan hawsha u wadi doono oo aan mar walba vlogyadii magaalada iyo meelihii qadiimka ahaa yacni aan nisoo duubi doono, dukaamadii waxyaabay discountka ahaa ee aan jeclahay inay hablo ka faa'iidaystaan waqtiga qabowgu baxayo kale. waxa weeyaan waxyaabo badan oo qabowga waqti qabowga qaali ahaaba la jabiyaa. marka insha Allah waa isla soconaynaa. waxaanan u mahadnaqayaa dhammaan asxaabtayda qaaliga ah ee halkan igala socota. waa mahadsantiin baan walaalin leeyahay sida wanaagsan aad ila socotaan. jazaakallahu khayran. waxaa kaloo meeshaan ka maqnayn shaahi, waxaan ku daray sinjibiil iyo hayl iyo dhagayare iyo qorofal iyo waxaan ku daray shaah madow. shaah madow wax weeyaan shaah caadi oo shaahina madow ay caadiga ahaa kilibtoonka aha ma aha. marka qorofalkii iyo haylkii waa kaas iyo dhagayarihii intaasaan isku tumay. sinjibiili kama maqna, dhaka jabiye sida reer abtiga u yaqaanaan. marka waa kaasa waxaan leeyahay dhaka jabiyaan kasoo tuuray cadaysa. marka insha Allah tacaala shaahina waa kaasa. dee qofku markuu youtube-ka ku cusub yahay waa moogtahay hadalkii luqluq buu yara gelayaa, laakiin de marka mar walba maaragtay aad soo dhigtay videogeeda hadasho ee de aad maaragtay waad yarada ilbaxaysaa, macallin baad noqonaysaa. marka insha Allah tacaala wax walba hagaagi doonaan, waa igu qaadan doontaan haddii ilaahay ka dhigo haddaan meelaha qaarkood ka yara booda hadalka. marka shaay cadaysnaana waa kaasa. dee waxaan ku ri laxooxdii shaay cadaysnaa dhaka jabiyaha ahaa sida reer abtiga u yaqaanaan yaa iyo laxooxdiiba waa kaasa. marka insha Allah wax walba way hagaagi doonaan. waxaan leeyahay asxaabey like-ta, followga, share-ta iyo comment wanaagsan intaaba hayla dhaafina. waxaa jira dad aad u fara badan oo daawada youtube-kayga oo maaragtay igu xidhan oo runtii aad ii wanaajiyo ii share gareeya oo maaragtay si fiican wallahi markan video soo dhigo ila dhaqma. waa mahadsantihiin aad iyo aad u mahadsantihiin. intiina kale iska yara ilowday ama inay like saaraan ama comment ka bixiyaan waxaan leeyahay de anigaas ko jimca ka soo tuuray dhaka jabiye yaa de like-ti iyo share-ti iyo comment-ka iga ilaawine soo tuuray insha Allah. idinkuna waxaan ku hadlaynayaa dhinaciina anigana dhinacayga inaan magaalada Ankara meel kasta qurux badan inii soo duubo oo aan inii tuso wax waloo discount inta ku nool si uga faa'iidaysato. qofkii u baahan soo dalbadana dee waa meesheeda wuxuu uga baahan yahay. marka insha Allah tacaala waa mahadsantiin baan leeyahay asxaabta qaaliga ah. aad iyo aad baa u mahadsantihiin walaalayaal. waxaan rajaynayaa wax walba inay hagaagi doonaan insha Allah tacaala. adduunyada wax ka dhacaya waa aragtaan. aan ducaysana insha Allah tacaala in muslimka u ducayno biidnillaahi alkariim. waniga hawshii diyaariyay casiirkii Boortaqiishaha
shaay cadaysnaa, qaxwihii, laxooxdii ama canjeeradii sida reer aabbahay u yaqaanaan canjeero. marka waa kaas ahe khayr iyo caafimaad baan idin rajaynayaa. waxaan leeyahay intaan haysana ilaahay ha siiyo, intii haysatana allah u barakeeyo. maasha allah tabarakallah baan leeyahay. idinkuna aad baa umahadsantiin asxaabay, jazaakallahu khayran. dee waxaan idin idhaahdo waxa ugu qiimo badan inaan idin duceeyo. marka waa mahadsantiin, like, share, comment. mahadsanid.